waxaa caawa magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar soo gaadhay isla markaana halkan ku soo dhaweynay wariye samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ka yimid magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho isla markaana halkan waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda iyo waliba mas'uuliyiinta safaaradda ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha koobaad ee safaaradda Cabdirasaaq Haashim iyo Aadan Maadey oo ka mid ah odayaasha jaaliyadda runtii aad baan ugu faraxsanahay in magaalada Dooxa uu noogu yimaado Cabdimaalik Muuse Coldoon oo halkaan ku soo dhaweyno xubno ka tirsan jaaliyadda iyo anagoo ka socona safaaradda Soomaaliyeed ee dalkan ka mas'uuliin ahaan Cabdimaalik runtii waa nin dhalinyaro ah oo samafala ah oo runtii ka suntan dhalinyaro badan oo joogta wadanka waxtar badanna qabtay in la soo dhaweeyo iyo in runtii waxa weeyaan qalbi furnaan loo muujiyo runtii aad iyo aad bay muhiim u tahay isaga iyo cid kasta oo maanta Soomaaliya oo ummadda Soomaaliyeed iska dhibaataysan u diirnaxaysa ama u damqanaysa Cabdimaalik in badan waxaynu daawanaa fiidiyoyada laga soo duubo ama wax qabadkiisa runtii saaxada Soomaalinimada imika aad buu runtii uga soo caan uga yahay marka si gaar ah ugu faraxsanahay bal inuu Dooxa iyo Qatar nala arko jaaliyadda safaaradda waxaan leenahay ku soo dhawow wadankani waa wadankaagii labaad waa wadan runtii aad u wanaagsan dad fiican ku nool yihiin aad u sharaf badan cid kasta oo samafal iyo wanaag iyo wax qabad u wada ummadda Soomaaliyeedna laga jecel yahay walaal Coldoon ku soo dhawow Dooxa Qatar waa magaaladaadii waa laga sugayay waxaan u maleynayaa 3 bilood ka hor mar baad noo ballansanayd jaaliyaddan waa ku sugaysaa xubnaha safaaradda waa ku soo sida lagu soo dhaweeyay waxa weey shacabkan waxay kugu barteen khidmada aad ummadda Soomaaliyeed u hayso qofka asaga dadka isbara marka inaad qof Soomaaliyeednimada iyo islaamnimada ku dheer tahay waxay cajab gelisay sawiradaada kamid ah markii wadankan xisaarka la geliyay waa ninka kaliya aan ku arkay oo soo qoran qasaman biman rafa'a samaa marka taa waxay ku tusinaysaa mawaaqiftiisa xataa dalkan xisaarka lagu hayay marka arrinta ziyaarada siyaasadaysan ma ahane hore inoogu qorshaysanayd inuu noo yimaado duruufo asaga haysta darteed baa dib ugu dhacday kulamada iyo goorta aan la kulmi doono insha Allah waa idin soo sheegaynaa ugu dambeyntii isaguna waxa halkaasi ka hadlay wariye samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon sidoo kalena waxaa jirta inuu kulamo la yeelan doono jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qatar bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa waxaan soo gaadhay magaalada Dooxa dalka Qatar taariikhdu ah 25 bisha 2017 waana markii ugu horeysay aan imaado Qatar iyo caasimadeeda Dooxa jawi wanaagsan baan runtii soo galay waan ku faraxsanahay inaan halkan imaado insha Allah waxa weeye Soomaalida halkan joogta insha Allah waa la kulmi doonaa dadkeena waa la kulmi doonaa in badan bay runtii dadkeen dadka gudaha garab istaageen muujiyeen runtii iyagoo ka fog dalka inay jacayl badan u hayaan halkan waxaan uga mahad celinayaa يعني soo dhaweynta la soo dhaweeyay wad maqlayseen xubnaha hadlayay runtii waxa weeye aad iyo aad baan uga mahad celinayaa si diiran bay ii soo dhaweeyeen kalgacayl walaaltinimo yani ayay ii muujiyeen xaqiiqatan waxa weeye waxaan islaamaha si fudud isaga soo gal laakiin waxa weeye iyaguna waxa weeye si weyn bay ii soo dhaweeyeen waxay ii muujiyeen walaaltinimada aan sheegay walaaltinimadeedan u hayaa waan ku faraxsanahay waxay matalaan xubnahan mas'uuliintani waxay matalaan Soomaalida joogta dareenkoodaasay matalaan insha Allah waxa weeye Dooxa waan gali doonaa Qatar yani insha Allah qaybaheeda kala duwan waan tagi doonaa Soomaalida waan la kulmi doonaa waan iswaraysan doonaa insha Allah waxa weeye hadal weynoo haray kulan weynoo haray arrimo badan baa inoo haray insha Allah asxaabta halkan ila joogta madaxda halkan ila joogta runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaa wad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamij kooban oo aanu ka diyaarinay soo dhaweynta wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon وأنا أحمد عبد القادر إسماعيل أحمد درويشة ثانية كلنتي دم بنبت كلي